ehelada iyo waxgaradka Allah u naxariistay ugaas Axmed Keenan Galeyr oo dhawaan ku geeriyooday dalka Mareykanka ayaa maanta waxay ka tacsiyeen geeridii naxdinta lahayd ee ku timi qoyska marxuumka. dadweyne fara badan oo isugu jiray simana madoono culimowdiin dhalinyaro haween iyo duriyadii uu ka tagay Allah u naxariistay marxuumka ayaa waxay ka soo qayb galeen madashii lagu ducaynayay marxuumka waxaana ay ka wada tacsiyeen geerida naxdinta leh ee ku timi qoyska marxuumka. anigoo ah Suldaan Maxamuud Sabeeye waxa halkan aan uga tacsiyeynaya oo aan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Axmed Keenan waxaan ilaahay uga baryaynaa naxariistii janno ilaahay inuu ka waraabiyo eeliyadii iyo dadkii uu ka geeriyoodayna samri iimaan uu ka siiyo. anagoo maanta halkan isugu nimid tacsidiisii oo halkan loogu dhigay looguna ducaynayo quraan akhris badanna halkan loogu dhigay. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan halkan uga tacsiyeynaynaa anigoo ah Farxaan Salaad Cali iyo dhammaan dadkan ehelada ah oo meesha yimid. Axmed Keenan Cabdille ilaahay ha u naxariisto baan u tacsiyeynaynaa halkan isuguna nimid maanta la barigiisii iyo inaan halkan ducadiisii looga akhriyo. dhammaan waxaanu ilaahay uga baryaynaa intii uu ka tagay iyo dhammaantayo samir iyo iimaan ilaahay inuu naga siiyo bedelkiisiina ilaahay mid ka khayroon inoo geliyo. qaasaan waxaan u sii tacsiyeynaynaa xildhibaan Maxamed Axmed Keenan. tacsi aan uga diraynaa Suldaan Axmed Keenan Galeyr adeerkay janno fardowso Allah ka waraabiyo. tacsidiisii baan maanta halkan ku dhignaa magaalada Garowe. dhammaan ummadda halkaas ugu timid dhowr boqol weeye. hogaankana waxa uu haya xildhibaan Maxamed Axmed Keenan. ilaahay waxaan ka baryaynaa janno fardowso ilaahay inuu ka waraabiyo. eheladii iyo qaraabadii iyo qoyskii uu ka geeriyoodana ilaahay waxaan ka baryaynaa samir iyo iimaan ilaahay inuu ka siiyo. kolla booskii uu ka tagay wax ka fiican loogu soo bedeli maaye. ilaahay waxaan ka baryaynaa samir iyo iimaan ilaahay inuu ka siiyo. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. halkan waxaan tacsi uga diraynaa Suldaan Axmed Keenan oo ku geeriyooday wadanka Mareykanka ku geeriyooday. waxaan leenahay ilaahay samir iyo iimaan ilaahay ha ka siiyo. eheladii iyo qaraabadii uu ka tagay isagana jannatul firdaws ayaan ilaahay uga baryaynaa inuu ka waraabiyo. aan raxiil magacayga waxa la yiraahdaa Farxiye Maxamed Keenan. waxaan halkan tacsiyad uga dirayaa adeerkay aan jeclahay oo qaaliga ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa naga jeclaaday. ilaahay waxaan ka baryayaa jannatul firdaws in ilaahay ka waraabiyo midigtiisa kitaabkiisana ilaahay midigta ka siiyo. aabbo ahaa kaas ummad ilaahay buu aabbo u ahaa sidoo aabbo ummadda ugu ahaa in ilaahay asagana ehelidii samir iyo iimaan ka siiyaan ilaahay uga baryayaa. waxaan u tacsiyeynayaa adeerkay Axmed Keenan Cabdille ilaahay jannadii ka waraabiyo. ilaahay ha u naxariisto janno yarxam Allah siiyo. ilaahay ha u naxariisto qabriga Allah u nuuro. wixii islaam ummadina Maxamed waalidintii Allah u naxariisto. baara maanta Allah naga xijaabo jinna iyo insiba sharkooda Allah naga xijaabo. wixii shar leh jinna iyo insiba mid sama jiray mid hareer jiray mid dhul jiray mid hore mid dambe ilaahay naga nabad geliyo. tan samadu raaran taariikh ruuxan talku reeban tadambar reeban tahorooran talku reeban sudan taariikh ruuxan Allahumma salli ala Muhammad. xildhibaan Maxamed Axmed Keenan oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaasina ah curadka Allah u naxariistay ugaas Axmed Keenan Galeyr ayaa eebaweyne waxa uu ka bariyay inuu jannatul firdaws uu ka waraabiyo aabihii Axmed Keenan oo dhawaan ku geeriyooday dalka Mareykanka. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. kullu nafsin daa'iqatul maut. اللهم اغفر لأبي اللهم اغفر لأبي سلطان أحمد كينان. آمين. وتقبله وتجاوزه وارفع درجته في عليين. آمين. اللهم احشره آمين. مع النبيين والصديقين آمين. والصالحين وحسن أولئك الرفيقة. halkan waxaan uga tacsiyadeynayaa qoyskayga hooyaday walaaladay dhammaan reer Axmed Keenan reer Daawud Saacad Maxaad Barre iyo dhammaan abtiyaashay beesha Madhibaan oo dhan meel walba ay joogaan iyo ummadda Soomaaliyeed ee uu aabay ula soo shaqeyn jiray haddii ay noqon lahayd intii Sacuudiga la joogtay iyo intii Minnesota la deganeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay samir iyo iimaan Allah naga siiyo. isagana miisaankiisa xasanaadka wixii wanaaga u sameystay Allah u aqbalo. sidoo kaleeto waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga baryaynaa inuu jannatul firdaws geliyo. in ilaahay subxaanahu wa ta'aala qabrigiisa u waasiciyo. qabrigiisa inuu rabbi uga dhigo rawdatan min riyaadil janna. ugaas Axmed Keenan Galeyr oo ka mid ahaa isimada Soomaaliyeed ayaa toddobaadkii dhaafay waxa uu ku geeriyooday dalka Mareykanka kadib xanuun soo wajahay. Cabdi Fataax Cabdullaahi Kalsan TV magaalada Garowe.